بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد مرسل صالح كعشان له كتر سنة إذا كاسومالي لان كتر سنة قيبة الضباط مهد عباشي لقونا على يسوع سكار لقونا على شنو كليه سكار إن بدن بن سومالي لان كتر سنة dadka iyaga dullinimo iyo dhib badan oo lagu hayo ku eeganayni maanta way kartayo dacayday goosatay Somaliland dad ay wax isu yihiin iyo dad ay xukunto iyo dad ay rajo ka sugayso midna lama dagaalamin gumaad bay geysatay dhibaatay geysatay way israacisay alxamdulillaah rabbil caalamiin way isku dartay waxay islaahayn qabto xoog ku qabto wax kala reebe gumaade way israacisay dhulbahante baan ka mid ahay wuxuu baxaan baxaa hadduu madhana waa la madhanaya hadduu noolaadana wax ka hadhana waa la noolaanaya waxaan u sheegayaa maamulka Somaliland dadku waxay lahaayeen oog ha tageen labada gaatama anigu meel ka sokoyso haddii bixi waayaan labada gaatama meel ka sokoyso kaga hadhimayno waayo dee adeer dal baynu kala lahayn wax badan baanu dhigtay huwanay dullinimo eegnay dadka iyaga ku eegnay dulmi waliba ku eegnay maantana dulmi waxa la xaq hadii afka laga wado kaliya ka dilaaca idima sheer garayn dhulbahante idi Somaliland kama horkeenin idi lacag kuma bixin siyaasiyiin ma dhixgelin dar allo ka qarxa dulmigii baana qarxay dheriga baa le karka kuleelka ka keena dhibaatadii ku hayeen iyo dulmigii ku hayeen baa Somaliland maanta ku qarxay mana noqonayo dibna wuxuu ku imaayaan Somaliland dhulbahante waayo de siday ula dagaalantay ama dhibtay ku haysay dad ay rajo ku sugayso lama dagaalamin way gumaaday isir bay ka dhigtay dagaalkii shacabkii wadooyinka marayay bay dishay kuwii shirkadaha ka shaqeynaya shacabka ah bay laysay yacnaha kuma dagaalamin nin qoristo ka soo horjeeda kuma dagaalamin isir bay kula dagaalantay maadaaba aan arkay halka inay marayso damiirkayga iyo dareenkayga way siin waayeen Somaliland dib uga tirsanaado sidaasaan isku ogaanaynaa ummadda Soomaaliyeed Somaliland waxaan idin leeyahay islaam hadaatiin dhaafa dadka hambada aad reebteen ka tago taga dalkiini hadaa taga weydaan daadeer idin turmayno idan kana xarimaynaba waxaad ka tirsanayd saldhigga toddobaad waxaan ka tirsanaa mahad cambaashe saldhiggiisa waayahay maadaama aad ka tirsanayd saldhigga toddobaad oo aad ka mid tahay saraakiisha qaybta toddobaad sarkaalkii xukuumay ee mahad cambaashe wuxuu qayb la noqday Somaliland fariinta halkan si gaar ah isaga u dirsan maxay tahay waxaan ugu diray mahad cambaashe oo mahad cambaashe waa nin adag kuna adag meelkiisa laakiin waxa ka fiican mahadow inaad rag saaxiibaabaynu ahay Soomaalinimaynu aaminsanay Somaliland waxaan ku leeyahay iska kaalay waayo meesha ay maraysa meel dhulbahanta ka soo noqonaya maaha meel uu ka soo noqonaya maaha waxaan ku oran lahaa dad u isaaq markii nin dhulbahanta baad ahay dhulbahanta wax ku ahay in badan waynu wacaal dhowrayno waxaynu lahayn ilaahay ama nabad ha keeno ama dadkaas aynu qaabkeenu u kala badbaadin lahayn kala badbaadino badbaadada ilaahay baa haya laakiin inaan waxaan ku leeyahay ka kaalay oo dadkaaga u kaalay oo ciidankaaga hambada hadhay dadkaaga ula kaalay intaasaan inaadeerkii mahadna odhanayaa ciddii kale ee Somaliland ee dhulbahantay rajo ka qabtayna war maanta way rajo beesha meesha ay marayso waa isir in isir ay u layso Somaliland magaca dhulbahantay ka kaalay odhan lahaa